السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل إسكسو نقد وناكسن السدني وحي كسابسن تهي ولشي نبي آذن إلى كل أورنجري قابل يا هابيل محاد أحمر قابل يا هابيل يا قردرنا حيسكو قلافين قدام بيتنا يا قولستي سؤالها يقوى كلابا وحي نقول جوابي دونا مقالك دحديسا balse intaynu muuqaalka u gudagelin daawade haddii aad nagu cusub tahay gambaleelka furo fiidiyogana like saar asxaabtaadana u sheergaray. nebi aadan calayhi salaam wuxuu dhalay ilmo badan waxaana ugu horreeyey qaabiil iyo walaashiisa waxaana ku xigay haabiil iyo walaashiisa. qur'aanka ayaa wuxuu ka warramay wixii dhex maray qaabiil iyo haabiil balse qur'aanka si cad uma sheegin magacyadooda. waxay sannad kasta dhali jirtay wiil iyo gabar mataana ah waxayna isku guursan jireen ilmo nebi aadan si isweydaar ah oo wiil kasta ma uusan guursan jirin gabadha lamataanta ah. taasina waa xikmadku ilaahay doonayay si ay u tarmi lahaayeen ilmo nebi aadan. balse arrintaa waxaa ka hor yimid oo khilaafay qaabiil oo wuxuu rabay inuu guursado gabadha ay mataanaha ahaayeen. taasina uma bannaaneen oo waxay ku soo aaday walaalkii haabiil. markuu qaabiil ku adkaystay arrintii nebi aadan ayaa wuxuu ku yidhi labadoodii gabadha waxaa guursanaya ninkii uu ilaahay ka aqbalo qurbaankiisa. qurbaankuna waa sadaqo. sidii ayay yeeleen qaabiil iyo haabiil oo qaabiil wuxuu qurbaan ahaan u soo qaatay caws yar oo agtiisa waxba ka joogin balse walaalkii haabiil wuxuu qurbaan ahaan u soo qaatay neefkii ugu fiicnaa uu lahaa. waxayna yimaadeen hal meel iyagoo mid kasta uu rajaynayo inuu qurbaankiisa la aqbalo. ilaahay wuxuu aqbalay qurbaankii haabiil oo cidhka waxaa ka soo tegay dab kadibna wuxuu qaatay qurbaankii haabiil. markaas qaabiil wuxuu ku yidhi haabiil waan ku dilayaa. haabiil wuxuu yidhi maxaad ii dilaysaa? qaabiil wuxuu yidhi maxaa loo aqbalay qurbaankaagii oo loo diiday keygii? haabiil wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ka aqbalaa dadka muttaqiinta ah oo ka baqa. haabiil oo hadalkii sii wata wuxuu yidhi haddii aad damacdo in aad i disho aniga miyihi mid ku dilaya ama kuu gacan qaadaya. haddii aad i disho waxaad qaadanaysaa dembigaygii iyo dembigaagii waxaadna gelaysaa naar. taasina waa mid aan fiicnayn ee walaal ka joog. balse nasiib xumo qaabiil waxaas oo waana ah dhag jalaq uma siinin waxayna naftiisa u qurxisay inuu walaalkii dilo. ugu dambayntiina wuu dilay. qaabiil markuu dilay walaalkii haabiil wuxuu ku sameeyey ayuu waayey meydkii oo haabiil wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey ee dhinta. wuxuu go'aansaday qaabiil inuu garabkiisa saarto uuna la wareego. ugu dambayntiina wuxuu arkay tuke aasaya tuka kale wuxuuna is yidhi oo waxaa kaa aqli badan tukaha kale oo aasaya tuka kale oo siduu sameeyey oo kale adna maa samayso. kadibna walaalkii ayuu aasay. halkaasina waxaa ku dhammaatay qisadii qaabiil iyo haabiil. allaahu aclam. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد
أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين